mashruucii iyadu ay ka dhirinaysay ay soo marisay xamar duqa magaalada xamar ee geeriyooday mashruucaasi halkaasuu soo maray markii hore waa lagu ogaa xukuumadda somalilandna way diiday siyaasi ahaan inaanay mashruucaas ooda ka rogin in shalayto mashruucaasi lagu wareejiyey isagoo sidiisiiya mashruuc injineeriyihiisa soo maraya in berbera lagu wareejiyey oo uu guddoomay maayarka magaalada berbera cabdiraxmaan cabdishakuur cidin anigu horta bal marka hore waxaan isdul taagayaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo leexashada ku dhacday muddadii axmed maxamuud siilaanyo uu xukunka qabtay ilaa maanta dhabbihii bay haysaa qaldanaa arrintaasina waxa weeye sakaaro saare la arki doonaa bay aasaastaa arrintaasi waa nabar weyn oo somalilan fadeexad iyo kibid ku ah hadday caddaato waxaan mashruucaasna haddaanu nahay guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada waanu ka daba tegaynaa lafagurkiisu wuxuu noo imanayaa si hubsiino sugan leh inaanu u soo qaadno marka aanu xogta dhabta ah soo qaadno ee mashruucaasina uu sidaa sumaddaa yeesho waxay noqon doontaa fadeexad qaranka ah golaha wakiiladana waanu ka soo bandhigi doonaa haddii ay arrintaasi noqoto arrintii oo aan biyees marin sideedana warwar weyn ayaa ka taagan dhabbaha ay marayso siyaasadda arrimaha dibadda ee maxaanku dhahaa somalilan xilligii siilayo wasaaradda magaca waa laga bedelay waxaa loo bedelay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iskaashiga caalamigii erebixintiisu mid mugdi ku jirta bay ahayd ilaa maantana waa tan isku walaaqan haddaba inanbaa waxay tidhi inan bay khamriga ka waanisaa isku jaamacad diganayeen oo dee heer darab awta gaadhay markaasaa wuxuu yidhi waxay ku tidhi walaal inan tacliinta ku wanaagsan baa tahay waxaan jecelahay inaad khamrigaa wuu ku dilayey iska dayso inantii baa maalintii dambe nin brofesoroo jaamacadda ka dhiga oo ku maydhaba bahalka ayay guursatay isaguna maalintii u la egto wuxuu yidhi walaal waad iga khamriga iga waaninayee sawdgan weelkii laga cabbayey u galay xukuumadda somalilan soomaaliya cid bay ku xadantaynaysa laakiin weelkii ugu weynaa ee laga cabbayey ayay arrintaasi ku noqon doontaa inay madaxa gashatay madaxweyne muuse bixi cabdina fadeexad bay ku noqon doontaa haddii arrintaasi ay dariiqa la sheegay ay ku soo baxdo annaguna waxaanu ballan qaadaynaa saxaafadda ka ballan qaadaynaa iyo qaranka somalilandba haddaanu guddiga dabagalka hantida qaranka nahay inaanu dabagelayno bannaankana soo dhigi doono mashruuca